بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 24 bisha 3 2020 waxaan rabnaa mudanayaal inaan halkaan ku soo bandhigno qaadashada la qabtay wasiirka duulista hawada wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha maxkamadda maareeyaha guud ee garoonka agaasimaha duulista hawada taliyaha qaybta iyo dhammaan sharafta joogta iyo taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha mudanayaal dhammaantiin waxaan rabnaa mas'uuliyiinta sharafta leh hortiina inaan ku soo bandhigno qaadkan oo la qabtay shalay kana yimid baladweyne oo gobolada ah horna amar ay dawladda Soomaaliya uga bixisay inuu qaad iyo maxaa la yiraahdaa iyo duulimaadkii hawada marka habku ku yimid iyo cadadkiisa hadaan faalla ka bixino wuxuu ku yimid 3 boorso gelinkii hore saacadu markay ahay 5tii subaxnimo waxa timid 3 boorso saddexaas boorso cadadka qaad ee ku jiray wuxuu ahaa mid waxa ku jiray 18 iyo bar kiilo midna waxa ku jiray 16 kiilo iyo hal majin midna waxa ku jiray 6 kiilo iyo hal majin sidoo kale falaydkii dambe ee galabtii waxa laga helay 2 kiilo sidoo kale sida arkayseen jeegaan waxa isku la jiray hilib loo yaqaan oodkaca iyo dhowr kiilo oo asna ah qaadka wixii procedure ahaa anaga waajibaadkeena shaqo ahaa ayaan ka gudanay warbixintii iyo reportkii iyo marxaladii uu soo maray baan ka dhignay documenti hay'adaha qaanuuniga iyo dalka jiraan la xiriirsiinay go'aankiisa iyo maxaa la yiraahdaa go'aanka gaaristiisana waxaan u daynaynaa mas'uuliyiinta aan la wadaagnay iyo maxaa la yiraahdaa sharciga sidaan ugu soo bandhignay marka mudane wasiir mudane gudoomiye madaxa sharafta leh waxaan rabaa inaan ugu soo dhaweeyo tirada cadad ee aan qabanay isku geyn waa 43 kiilo 41 kii hore ahaa iyo 42 kiilo dambe iyo 1 kiilo jeega ah marka waa arkayseen sida ugu loo qarinahay laakiin ciidanka booliiska ee ka hawlgara garoonka runtii waxay foojignaan ugu jireen awaamirtii dawladdu ay bixisay inuu ay ka dhaqan gasho marka har iyo habeen waa loo soo jeedaa marna maxaa la yiraahdaa awaamirtaas naaqs kuma imaan doona aad iyo aad u mahadsantiin